marar badan wuuna warwareejiyay sanadka iyo barka mar waxaan jirin naloo balan qaaday iyo mar nugu maanta waan maqanahay iyo mar nugu iska noqda maanta adigu culays far badan baan kala kulanay sanadkan ugu dambeeyay imanka 2020ka bisha labaad imanka ee 12 maraysa laba jeer ayaan tagnay labadii jeer gudoomiyaha iyagu wuxuu abaal nooga dhigay in maalinta hore dadkii oo dhan marka la sii daayay dadka ay dhamaadeen ayuu askari ku yiri dhowlayaasha wax haray soo daayaan mee wuxuu in yar suga uu soo diyaar garoobay anagoo kadinkii albaabka toban ee qolkiisa ayuu intuu dhaafay isagoo salaamin ayuu gaarigiisa istaadhay halkaas uu naga dhaqaaqay ururka ay ku midaysan yihiin dadka aragga naafada ka ah ee ku sugan gudaha magaalada Burco ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi waxaana cabasho xoogan u direen madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan ku codsanaynaa inuu si degdeg ah uga soo jawaabo arrinteeda dhaqdhaqaaq ayaanu nahay hadaan nahay dhalinyarada aragga ka naafada ah ee gobolka Togdheer ku nool in dhawaan waxaan wadan dhaqdhaqaaqyo waxbarasho doona taas oo aanan helin horeysiyo dambaysato gobolka aan ka hirgelin hasayeeshaan dadaalkooda dhexda u xidhanay oo waxaan ku habeenay maalin baan u soconaynay aan cid ka soo xaqan ugu leenay cid ka soo wax nagala tar karaysa aan magaranaysa lugu tagaynay maxamuud xasan caynaashe ilaahay khayr ha siiyo si fiican noo soo dhaweeyay in wada shaqeyn fiican waanu leenahay dadaalkii iskuulka lagu baadoo lahayn nala wada sidoo kale maayirka magaalada maxamed yuusuf tumraad isaguna si fiican noo qaabilay wada shaqeyn fiican waanu leenahay waxyaalo far badan noo ballan qaaday in iskuulka sida u furmay isagoo nagala garab gelayo qaybtiisa iyo saamigiisana uu ka qaadanayo hase yeeshee gobolka kulli wuxuu qaybsan yahay dawlad dhexe iyo dawlad hoose dawladii dhexe waxaan looga wakiilaa gobolka barasaafka Mudane Xamse Maxamed Cabdi dadku xukuumaanu ka mid nahay hase yeeshee ilaa 2018 bishii tobnaad waxaan u daba soconay oo aanu kala haleynay inuu iskuul nagala qayb galo marar badan wuuna warwareejiyay sanadka iyo barka mar waxaan jirin naloo balan qaaday iyo mar nugu maanta waan maqanahay iyo mar nugu iska noqda maanta adigu culays far badan baan kala kulanay sanadkan ugu dambeeyay imanka 2020ka bisha labaad imanka ee 12 maraysa laba jeer ayaan tagnay labadii jeer gudoomiyaha iyagu wuxuu abaal nooga dhigay in maalinta hore dadkii oo dhan marka la sii daayay dadka ay dhamaadeen ayuu askari ku yiri dhowlayaasha wax haray soo daayaan mee wuxuu in yar suga uu soo diyaar garoobay anagoo kadinkii albaabka toban ee qolkiisa ayuu intuu dhaafay isagoo salaamin ayuu gaarigiisa istaadhay halkaas uu naga dhaqaaqay waanu iska dul qaadanay waxna waa dawladdiina waa barasaafkiini insha Allah saaka kaga tagana waan ku soo noqonay maalin labaadii dadkii meesha tobnaa baa yiri war dhowlayaashaas ugu mudane ama dhalinyarada aragga naafada ka ah inuu sii deeyno inagu aan sugnay markii askari yiri waa nimanka wala soo fasaxay ma sii daayaan ma nimanka wixii maanta iska noqdo ku soo deeynina markaan waxaan leeyahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha gudahaba kulay qaybta anagu xukuumadda dhaxan ku lahayn gobolka ma hayno cidna qaabishana kuma hayno amurahayaga cid aan sheeganana ma hayno waxaanu la yaabanahay ama abaal darro nagu ah dadkii aragga naafada ka ahaa waxbarasho ka hadlayay saamina si maanu lahayn wax kale maanu doonayn laakiin waxbarashada xaq u leenahay hal iskuul qoraa xitaa furkumaan oo nagala shaqeeyaan lahayn kulay nalama habooneen maanta qarankayaga ama qof xil haya inuu saa xaqayga u ilaawo waxaan leeyahay inay dawladda Soomaaliland ugu horeeyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu cidla nagu eega maahay inuu wax noo qabtaan doonayna in wasiirka wasaaradda waxbarashadu wax noo qabtaan doonayna in wasiirka arrimaha guduhu una la xidhiidhaban doonaa in gudoomiyaha Xamse Maxamed Cabdi oo aad cadaadin noo saaraya oo cadaadinta naga qaado mas'uuliyaddu naga hayo saaninu wax nagu qabtaan doonayna in kasto cadaadin weyn nagu hayo imka baabada naga xidhanay markaan soo galno waxa la guurtidii baarlamaanka Soomaaliland waxa la waxyaalo badan bay asixiyaan oo waxyaalo badan khaladiin maxay bulshada aragga ka naafada Soomaaliland joogto u asixin waayeen sidii ay waxbarasho u helayeen sidii horumar u helayeen sidii caalamka uga mid noqon lahaayeen runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa aan insha Allah tacaala aan u ducaynaya runtii xubnaha madaxda ah ee gobolka soo dhaweeya runtii si fiican la shaqeeya ugu horeeyo maayir Maxamed Muraad runtii waa nin geesi ah oo tawaaducana ah runtii ahna nin aqoon-yahana runtii xafiiskiisuna dadka naafada ah iyo dad kale aan u kala xigsan markastaba uu furan yahay runtii ixtiraam gaarana siiya iyo maamuus gaar iyo soo dhaweyn gaar si fiican u dhageysta si fiican u qanciya iyo insha Allah Maxamuud Xasan Caynaashe gudoomiyaha waxbarashada labada nibootaraad aad u amaanan yihiin ana waa waxbarashadina intii badneed inamadii baa hadlay dawladda ku wax noo qabtayna waxaan u leenahay waad ku mahadsantihiin deynta wax noo qaban waxaan leenahay daaneega anagu waxaan u baahanay wax nala baro alla eego wax nala qabto dawladda waxa jirta qayb wax noo qabatay qayb aan waxba noo qabanin albaabada naga xidhatay kuwa kale aan eegin albaabada naga xidhayna waxaan leenahay ilaahay ka cabsada dalka xuquuq baan ku leenahay
dee waxaanu nahay dadkiisii oo dadkii dalka oo la xaadla cabdiqani baafo telefishinka caalamiga ah RTN magaalada Burco.